Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Wacan oo wanaagsan daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii sirta nolosha. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya haddii allaha awoodda la ogolaado anigoo ah Maxamed Siciid Cali Maxamed Turki. Waxaanad kala socotaan barta aan YouTube-ka ku leeyahay ee Maxamed Turki Channel. Barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa qaabka looga baxo dhibaatooyinka qofka la soo gudboonaaday inta uu nool yahay. Dunidani aynu ku noolahay waxa ay ka samaysan tahay isla markaasina sideedaba uu Ilaahay u abuuray farxad iyo murugo. Dadka bini'aadamka ee dunida ku nool waxaa soo wajahaya labadaasi qaybood. Inta aad dunida ku nooshahay waxaa kula soo darsaysa dhibaatooyin amaba se xaalado markaasi qalafsan, isla markaasina saameyn ku yeelanaysa noloshaada si toosa amaba si togan. Balse dhibaatooyinka qofka kula soo gudboonaanaya dunida iyo weliba farxadda iyo raynraynta qofku uu ku helayo dunida dhammaantoodba waa sunno kowniya uu Ilaahay u abuuray dunida, isla markaasina ugu talagalay basharka bini'aadamka in lagu kala saaro nolosha. gebi ahaanteedba nolosha adduunku waa imtixaan. Ilaahna waxa uu ka leeyahay ujeedooyin, isla markaasina bini'aadamka waxa uu u abuuray in markaasi ay isaga caabudaan. Dunidana waxyaabaha uu markaasi uu la kulansiiyo ay ku samraan, haddii ay dhibaato tahay iyo weliba haddii ay nicmo iyo wanaag tahayna ay markaasi ay isaga uga mahad celiyaan. Dhammaantoodna waa imtixaan sida uu Ilaahay uu inoo sheegay. Haddaba inta aad dunida ku nooshahay waxaa kula soo darsi kara dhibaatooyin. Tusaale ahaan waxaa kula soo darsi karta dhibaato dhaqaale, amaba se dhibaato caafimaad darro, amaba se dhibaato markaasi amni darro, amaba se mushkilad markaasi ku imanaysa faamligaaga iyo weliba naftaada guud ahaanba. Waxaa loo baahan yahay waxaasi oo dhanba inaad ku samirto, isla markaasina aad ogaato noloshan adduunku in aan dhibaatooyinka qofka la soo gudboonaada amaba se caqabadaha la soo darsaa inaanay ahayn markaasi kuwo lagu waarayo, balse khasaaraha dhabtaahi uu yahay khasaaraha uu qofku uu ku khasaaro maalinka aakhiro. Kaasina ma aha mid markaasi qofku uu ka baxayo amaba se uu helayo meel markaasi uu uga baxo, balse dhibaatooyinka kugu qabsata adduunka waad helaysaa meel aad uga baxdo, amaba se waxaabad markaasi aad noqonaysaa mid ka raysta. Sidoo kale waxaad ogaataa mushkiladaha adduunyada qofka ku qabsada amaba se dhibaatooyinka ku qabsada in markaasi lagaga tirtirayo dembi, isla markaasina darajooyin sare loogu qaadayo haddii uu qofka bini'aadamka ahi markaasi uu ku samro. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur'aankiisa inugu sheegay, isla markaasina uu ku bayaamiyey haddii uu qofka Ilaahay uu ka cabsado inuu helayo makhraj iyo weliba meel uu uga baxo dhibaatooyinka iyo weliba mushkiladaha haysta. Sidaynu sheegnayna taasi waa sunno kowniya oo Ilaahay u dejiyey dunida in markaasi dadka bini'aadamka ahi ay marna ay la kulmaan nolol wanaagsan, marna ay la kulmaan dhibaatooyin. Sidoo kale waxaa muhiima in uu qofku markaasi uu ku samro wax kasta oo amaba se dhibaato kasta oo la soo darista, isla markaasina uu keeno xalkii uu uga bixi lahaa iyo markaasi qaabkii uu uga dabaalan lahaa. Waayo maskaxda waxa uu Ilaahay uu kuu siiyey in aad markaasi aad ku odorosto, isla markaasina aad ku kala garato waxyaabaha markaasi kula soo gudboonaada, sidii aad uga bixi lahaydna markaasi aad tijaabiso. Balse waxaad ogaataa markabka ugu weyn ee la raaco, isla markaasina laga raaco imtixaanaadka iyo weliba dhibaatooyinka adduunka inuu yahay samirka. Ugu dambeyntii waxa aynu markaasi isku dardaarminaa in dhibaatooyinka adduunka inagula soo gudboonaada aynu ku samirno, isla markaasina aynu Allah barino. Waayo qofku haddii uu Ilaahay u baryo waxa uu helayaa makhraj uu uga baxo dhibaatooyinkiisa. Rabbina waa kii aqbala ee ajiiba baryada addoommadiisa. Sidoo kale waxa aynu isku waaninaynaa in aynu markaasi nicmooyinka aynu helno iyo weliba ladnaanta aynu ku sugannahay aynu ku mahadnaqno, isla markaasina aynu Allah ugu mahadnaqno cibaadadiisa iyo weliba waxa wanaagsan ee markaasi Allah uu ina farayna aynu qaadano, waxa xun ee Ilaahay uu inaga reebayna aynu ka tagno. Waa tahay daawadayaal, intaasi ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkeena. Fadlan subscribe saar, like iyo share na ku qabo, lana wadaag asxaabtaada.
inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.